hadda ayaa la gaadhay waqtigii muddada dheer aan u shintirinayay aan daaha ka faydi lahaa hankayga siyaasadeed ee murashaxnimo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee gobolka Maroodijeex geedigan oo xilli hore soo bilaabmay maaha mid sibir dhaqaaqa waa mid aan in badan u sahamiyay una xidigiyay waa golaha aan tagayo ee wakiilada way caddahay sida dhayday ugu caddahay waxaan doonayo inaan qabto iyo shaqadaan halka u tagaya rabitaankayga iyo damacayga siyaasadeed wuxuu ku saleysay kalsoonida aan ka haysto dadkayga gobonimada badan oo aan rajaynayo insha Allah inay halka igu taageeri doonaan codkoodana igu siin doonaan haddii dadkaygu igu doorto oo Rabbi subhanahu wa ta'ala igu guuleeyo golaha wakiilada waxyaabaha wax ka qaban doono waxa kamid ah dabridda awoodda xukuumadda ama tiirka fulinta ee xadhkaha goosatay waxaan ku dadaali doonaa nooleynta isla xisaabtanka ilaalinta iyo daafaca xuquuqaha bulsho siyaasadeed iyo dhaqaale ee bulshada reer Somaliland ee kala duwan sareynta sharciga iyo madax bannaanida garsoorka ayaan hawlahaas u tagi doonaa waxaan ka sharaxanahay xisbiga wadani dhawaanna insha Allah waxaan shaacin doonaa oo xaflad weyn ku qaban doonaa Hargeysa sidaas ayaan taageerayaashayda ku wargelinayaa inay u soo diyaar garoobaan tanina waa sii ogeysiin inaan idin ogeysiiyo inaynu gaarnay xilligii ay habboonayd inaynu daaha ka rogno hankeena siyaasadeed ee ummadeenna iyo hoggaankeeda aynu wax ugu tari lahayn horena ugu socon lahayn meel naq leh oo dhaanta maanta halka la joogo